الله الرحمن الرحيم waxaan rabnaa insha Allah maanta inaan idin la wadaagno deeqihii saacadii ugu dambeeyay guddiga soo gaaray qaybo kamid ah dabcan deeqahaas oo dhan ma ahan si gaar ah rabnaa inaan u xusno deeqa si gaar ah akoonada qaar ugu dhacay waxaa kamid ah jaaliyadda ama ganacsatada ku nool koonfurta Suudaan oo guddiga soo gaarsiisay $119 oo Somali Business Association magaca ku soo direen insha Allah dhowr kalima Sheekh Nuur ka dhigi doono oo ducaa ah waan helnay waan uga mahad celinaynaa Ilaahay bacdigiis sidoo kale waxayna soo gaaray $100,000 oo dawladda Malaysia madaxdeeda ay soo dhiibtay ra'iisul wasaare ku xigeenka sidii aan habeen hore uga gudoonay oo ayadana aan hayno Al-Baraka Islamic Resource oo UK ah waxayna soo gaarsiiyeen $8,388 waa Al-Baraka Islamic Resource sidoo kale $13,444 waxaan ka helnay jaaliyadda gurmadka abaaraha si gaar ah ee Malaysia oo ayagana lacagtaasi noo soo direen shaqaalaha dekada Muqdisho $7,304 ayagana naga soo gaartay waa shaqaalihii ugu horeeyay oo si gaar ah lacagtaas looga soo qaaday markii laga reebo shaqaalaha dawladda oo si toos ah looga jaray lacago ay ugu tabarucayeen abaaraha gurmadka abaaraha sidoo kale 11,000 waxaan ka helnay Masjid Abubakar Siddiq ee dalka Sweden waa Ilaahay khayr ka siiyo $6,000 waxay naga soo gaartay ardayda wax ka barata Turkiga oo soo xilqaamay $5,500 waxay naga soo gaartay Masjid Ar-Rahma Canada ayagana Ilaahay khayr ka jazeeyo $2,503 waxaa noo soo diray Umar Gaarane dalka Sweden oo horeyna qof uga soo qaaday aan Soomaali ahayn $1,474 Ilaahay khayr ka siiyo aad u soo dadaaliyay waxaan rabaa markaan Sheekh Nuur inaan siiyo inuu u duceeyo dadkaas si isku duuduub ah gaar ahaan dadka sida gaarka isu xilqaamay inay gurmadka abaaraha ay wax weyn ka geystaan annagana Ilaahay ha naga dhigo kuwii guto xilkii iyo amaanada loo soo dhiibay insha Allah Sheekh Nuur inta wax soo dirtay aad bay u mahadsan yihiin waxaan leenahay jazaakumullahu khayr waajibkiinii baad gudateen wadankiinii iyo dadkiinii iyo dalkiinii oo marxalad adag maray ayaad u soo gurmateen marka waa wax aakhira idinkaga horeeya waa wax miisaankiina insha Allah lagu kabi doono waa wax cizi iyo karaamo iyo aakhiri adduunba iyo ridaha Ilaahay aad ku helaysaan aad baan idinkaga mahad celinaynaa Ilaahayna waxaan idinkaga baryaynaa meesha aad ka soo qaadeen wax ka khayr badan inuu idin geliyo inta bugta Ilaahay inuu ku caafiyo caruurtiina iyo diintiina iyo iimaankiina Ilaahay inuu idin ilaaliyo wadama gaalaad joogtaan akhlaaqdiina iyo diintiina iyo caruurtiina Ilaahay inuu ku dhowro inuu Ilaahay fatxi idinku furo waxa weeye arintu ma joogto 6 milyan baa dhibaataysan gurmadka wada waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadnaqo jaaliyadda degan meesha la yiraahdo Sweden oo moodid si xawli ah oo muslimnimo oo Soomaalinimo inay u halgamayaan lacagahoodu saacad ay isaga soo dabadhacayaan Sweden Ilaahay khayrkiina ha badiyo meelo kale oo badan sida Switzerland oo kale iyaduna aad bay u dadaalaysaa Mareykanka saaka Seattle baan wada hadlaynay ayagana khayr badan baa ka soo socda meelo kale oo lacag badan soo dirayna way jiraan waxaan rabaa halkan inaan uga jeediyo baaq Tanzania ganacsatadooda oo in muddo lacag aruurinaysay oo hadda u malay 200,000 inay gaadhayba waxaan leeyahay wax la sii sugsiga ma jiro lacagta noo soo gudbiya sidaas oo kale Uganda oo ayadana abaabul ka socdo waxaan leeyahay soo gudbiya lacagtaas insha Allah kulli inta wax aruurisay iyo inta ku jirta iyo inta soo dirtay khayrkiina adduunka aakhiraba waxaan leeyahay Allah badiyo lacagtaas annaga nagu soo hagaajiya guddiga qaranka ee gurmadka abaaraha aad baad u mahadsantiin